caawa waxaan xusaynaa xafladii 28aad ee dowlad goboleedka Puntland. farxad bay noo tahay inaynu isugu nimaadno. intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciddii fikirtay xafladda tan oo diyaarisay hoolkan oo dhaqaale iyo fikirba ku bixisay. aad iyo aad ugu mahadsan kasoo qaybgalayaasha danahoodii ka soo tegay oo diyaarka ah iyaguna aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedna aad bay u mahadsan tahay meelay joogaanba inta ka soo qayb gashay iyo inta kaloo daawan doonta xafladda insha Allah. intaa kadib waxaan si kooban uga hadlayaa taariikhda Puntland oo aan badnayn. waxaad ogtihiin 1991 in dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. haddii dowladdii burburtay gobollada Puntland muddo 7 sano ay sugayeen in dowladdii Soomaaliya dib loo yeegleelo oo laga horsugayay Soomaalida kale inay u soo diyaargaroobaan. iyaguna waxay ku noolaayeen nidaam wanaagsan oo nabad ah oo laakiin aan dowlad u dhisnayn nidaam isimo iyo dhaqan iyo xeer ku dhisan. arrintaasi markii muddo 7 sano ay socotay oo la waayay wax soo socda waxaa dhisay maamulka Puntland. waxaana la isugu yimid magaalada Garowe waxaana muddo dheer oo la fadhiyey oo naf iyo maal dadkaas iyagu la bixayeen oo aad garanaysaan waqtigaas siduu ahaa dhaqaale xumada iyo adduunku sidoo naftooda ay diyaariyeen. waxay isu yimaysimo waxay isu yimay siyaasiyiin iyo dad indheer garada oo badan. dabeedna waxaa la sameeyey 1 August 1998 dowladda Puntland oo ay u dhamaystiran yihiin wax kastaba shuruucdeeda dhaqankeeda wax walba xuduudaheeda si kastaba. arrintaas markii la sameeyey dastuurka Puntland waxaan akhriyayaa qodobka 4 ee dastuurka Puntland wuxuu dhigayaa inay tahay dowladda Puntland dowlad maamul goboleeda oo madax bannaan oo xuduudaheeda bad berri iyo hawada iyadu leh. wuxuu qodobka 4 ee fikradiisa koowaad leeyahay dowladda Puntland waxay qayb ka noqonaysaa una diyaar garoobeysaa sidii dalka Soomaaliyeed looga dhisi lahaa dowlad Soomaaliyeed oo federaal. fikradiisa saddexaad waxaa lagu qoray dowladda federaalka ee Soomaaliya xuquuqda dowladda Puntland waxay yeelanaysaa marka dastuur la sameeyo oo dastuurka la ansixiyo isla markaana ummadda Soomaaliyeed cod loo qaado. dadweynuhu cod ku ansixiyaan waxaana taas ay intaan la gaarin taa waxaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ay ka heshiinayaan xuquuqaha dowladda Puntland iyo dowladda federaalka. waxaan hadda idinka caddeynayaa caqabadda ka taagan dowladda Puntland iyo dowladda federaalka waxaa weeye dastuurkii waa la ansixiyey laakiin looma odayn. sababtu waxaa weeye in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu isu yimaadaan laga shiro dabadeedna heshiis cad oo lagu qaybsaday maamul goboleedyadu isma leeka waa kala waaweyihiin. xuquuq siman in loo qaybsado dabeedna si toos oo qof waliba uu xaqiisu u cad yahay inuu kalsoon yahay inuu dowladda markaa u aqbalo kuna qaato xuquuqaha uu leeyahay. xuquuqda dowladda federaalkuna ay leedahayna si toos ah ay iyagu mas-uuliyaddooda u qaataan. sida manitoba federaal Canada hadda xuquuqdooda leedahay dowladda federaalka ee Canadana xuquuqdooda leedahay si cad oo la soo dhurmay. arrintaasi ma dhicin. caqabadda taagan oo dowladda federaalka iyo dowladda Puntland haysata
تاوي مرة كمان بعض واحد مقليسان دولة كلها محي جيدانها مركز صادقة المحيشين يضع عقباتها وعارنتاس قرب أفراد بعدين وإلا من الشيء تدويرين والأسياد وذلك دولة الفدرال كوا دولة لكن سياسيين دولة بدل أما هذا من دولة أما من فدرال هذا أرنتاس ولي الرمال هاي سيدا هلوبة كاوي عن وجه دولة بوتلاند عيدا هي داد تحيي الشورى وأمريكا وحانوش قيمة دولة فدرالك ماشيو because تصير خلاص عيدي أرنها سميسي أما سمين دوتنا أولادين وأنين أولادين يعني حضرها يبقصوك بلنا ويبقى بلنا نظام كفدرال كاي يوركوي دلوشي سيل لبقى نيرو 2004 oo markaa ay nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaa iyo nimankii goboleedyada ahaa sida Puntland iyo Galmudug heshiis lagu wada qanacsanayaa iyo igad goboleedka igad ay la joogeen oo la ansixiyey taasna waxaa lagu ansixiyey heshiiska federaalka ee Soomaaliya dowladii waqtigaas joogtay oo dhalatayna waxay ahayd dowladii Cabdullaahi Yuusuf dowladda Cabdullaahi Yuusuf waxay ku dadaashay sidii waddanka dib loogu noqon lahaa waxay naf iyo maal gelisay ka imaanaya Puntland sidii Muqdisho loogu noqon lahaa Muqdisho lagu noqday waana lagu guulaystay laakiin halkaa dowladda Puntland waxay geysay ciidan u dhaxeeya 3,000 ilaa 5,000 wax ka soo noqday oo badani ma jirin waxaa lagu hayay ma jirin Muqdisho ma soo dhaqday waa aragtaa inta kadib waxaan u geelayaa madaxweynayaashii Puntland soo maray sida Sheekh Faysal Sheekh Khalaas iyo waxaa laga soo bilaabay sabxada garoonka waxaan eegaynaa waxqabadyadii dhacay madaxweynayaashii Puntland waxaan ka hadlaynaa taariikhda Puntland kuwa markii la isugu yimaado xafladda waxaan ka hadlaynaa madaxweynayaashii soo maray Puntland siday uga qabteen iyo siday kala ahaayeen Cabdullaahi Yuusuf Axmed Cabdi Muuse iyo Maxamed Cabdi Xaashi madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynayaashii federaalka oo nafti iyo maal laga soo qaadayo laga soo boosaaso iyo deegaanada cashuuraha Puntland ku jiray oo maanta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku noolaalayso waxaan xuseynaa oo ku xigaa madaxweyne Froole wuxuu isaguna halkii ka sii ambaqaaday wuxuu dhisay garoomada Garowe iyo Boosaaso iyo hay'adihii dowladda oo si dhammaystiran uu maxay ahayd uu hareeyay aad iyo aad madaxweynahaasina xukuumadkiisa saas ku cadiyay garoomada Garowe iyo Boosaaso iyo waxqabadka tiro badan waxaan xuseynaa markay madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas waxaa lagu xusuustaa dastuurka federaalka markuu madaxweynaha misalka waxbadan ka qabtay waxaa kaloo lagu xusuustaa dekada Garacad waxqabadkiisii weeyaan waxaa lagu xusuustaa wadada Eelgaal ee u socota waxaa kaloo lagu xusuustaa waqtigii ay soo galeen nimanka al-shabaabkii ahi Garmaal iyo deegaanada waqtigiisii waxqabadkaasu waa qorin subiin siyaasadda taasay ahayd madaxweynaha hadda jooga waxyaalaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah oo number 1 ah sidii ciidanka iyo habeyntiisii iyo xilligii uu sameeyey iyo tiriibnadii meelo badan lagu habeeyey xorgobole gaalkacyo iyo green oo badan ahaa xerahaas ciidamada ku habeeyey aad iyo aad buu habeeyey taas oo qabad ahayd waxaa ku xigay waxqabadkii dagaalkii Laascaanood
وآد ياد هول في عنوان غاطي وحاكو حيلي دقال في عالم إسكاد وعندما آد أترى بدني أي كلام يا هذا ترى عندما ماشي أقول لك أنا شيرين سوف أدرك كل وصلة ونصير قرن ما كان عليه في النشر الله تعالى لكن عليه ماشى كتير يروح وشيري يحب الرملات تطور إلا بديه أنت سنوات آلية الله مستوي وقبل كبير وقصاص البزنس كذا أي سفي على شغالية هذا أنت دولة الدنيا دولة الفدرالية الصومالية عن كما يصير أسكار وسياسية تكي أسكار في داير عمتي ولا فرق لك إندي ولا كرسيدا لا شيء دولة محيط دي باسبور في داوري وحيكفي تهيئة وحيكفي حيث اللي عماش كسر على السوق دولة دي فدرالية نقول لك كتير فورورد باك الله أصل لكن أنت أسيا غير بدنا نحكي ما أنت وحيوان هاي تبكي لما يكون انترناشونال على مسكات شن يطلعون كل ولا ينشوف وحيوان يعني نبيه والبشر يهرب البشر أنت كذب وحنوصل يا حضرتي بروتولا كل بروتولا غطي كدعي ليش اللي هذا محيا كميسوتا جروه قبل ذا أروح بدم بيهاين إيمان بيهاين شرف بيهاين لكن أركتيا سبحان الله شيء محيا لي نادي هل غري يكبر السعودية من مطار هاي يونادي ديدن كم مغري وحنا رجعنا شعب كبرنا ما قبل ما قبلنا أنت أيها وحنا رجعنا دولة كبرنا نعمل أصحاب يقولون بين وحنا رجعنا هاي بلاد أنا هاي دولة أوروبية هل توافقون على دولة أوروبية؟ وعن كلام دولة الإسلام في عام الجميل قبل الدولة هذا العرب. فنانتي آليات دامي كامرينيا دواشات فرحة